maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa dil toogasho ah waxa ay ku fulisay askar loo haystay dilka ammaanduulahoodii. warbaahinta qaranka Soomaaliyeed waxay heshay godkii uu ku noolaa horjoogihii hogaaminayay qawaarijta lagu soo afjaray deegaanka Bariire. Waxda qawaarijta ayaa lagu dilay gobolka Boqol kadib howlgalo ciidamada qaranku ay ka fuliyeen halkaasi. Taariibayaal ayaa gacanta lagu dhigay xilli ay doonayeen inay galaan gudaha UK. intaasi qodobada wararkeena ayaa ahaayeen daawadayaal markaan ku soo dhawaada warkii oo faahfaahsan anigoo Firdawsi Maxamuud Saal ayaa wararka kan ka sheegay aynu ku bilownay maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa dil toogasho ah waxa ay ku fulisay askar loo haystay inay dileen ammaanduulahoodii. wariyaheena Cabdiraxmaan Gacan ayaa faahfaahintaasi dheer soo jeedinay. Buulle iyo Salaad Koofi mar ayay ahaayeen geesiyaal qaran oo sharaf ku dhex leh dadkooda balse mar qura ayay isku bedeleen qaa'inul wadan la shaqaysta cadowga qawaariista ah lana wadaagay wax kasta oo sir u ahayd colkii ay ka mid ahaayeen ilaa ugu dambeyn loo adeegsaday dilka abaanduulahoodii ururka markii loo ballan qaaday $600 Mareykanka ah. Ekis Alif la xooga Maxamed Xuseen Buulle iyo Ekis Dab la xooga Aadan Isaaq Salaad Koofi ayaa ka tirsanaa guutada 14 Oktoobar oo la aasaasay qaraxii soo boqon kadib maanta ayaana laga diray dunida lana mariyay wadada ayaa gacanta keentay qaraxa lagu dilay Ekis Dab la xooga Ciidid Maxamed Cali abaanduulihii ururka 83 waxayna ku wareejisay Aadan Isaaq oo isaguna gudaha xirada ciidanka 14 Oktoobar ee janaale ugu geeyay Maxamed Xuseen Buulle kaasi oo miinada ku dhajiyay sariirtii uu ku seexanayay marxuumka abaanduul Ciidid oo aan ka warhaysan qolka loo dhigay ayay ku qaraxday miinadii loogu qariyay qolkiisa isla goobtaas ayuuna ku dhintay 15kii bishii 7 ee sanadkii hore 2024. maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaa 18kii bishii 8 2024 u fariisatay dacwadii ka dhanka ahayd Buulle iyo Salaad Koofi oo ay weheliyeen eedeysanayaal kale. isla maalintaas ayayna maxkamadda ku xukuntay dil toogasho ah qisaasta marxuum Ekis Dab la xooga Ciidid. maanta oo taariikhdu tahay 11 Agoost ayaa fagaarahan cadaaladeed looga oofiyay xadkii qisaasta sidoo warbaahintu u sheegay xeeraaliye Dhamme Xasan Maxamed Siyaad Xasan Tarsan. maanta oo ay taariikhdu tahay 2025 waxa lagu fuliyay xukunkii qisaasta ahaa wabillahi tawfiiq. halkan oo ah gobolka Shabeellaha Hoose waxa xadkii qisaasta looga riday Buulle iyo Salaad Koofi oo iyagoo u shaqeynaya qawaariista qarax ku dilay taliyahoodii waxaana qisaastan fuliyay geesiyaal ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyadoo goobta ay ku sugnaayeen gudoomiyaha maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida General Liibaan Cali Yarow iyo taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Odowa Yuusuf Raagi. halkan ayayna fariin uga direen gudaha ciidamada qalabka sida qofkii oo qawaarij calaaqa leesto ama xariir leesto hadday kugu cadaato yoomku keeni doonaa annagana waa ku heli doonaa waanu ku doonaa. qof kasta oo qiyaano qaran ku kaca darajada doonyaha ahaado nuucuu doonyaha ahaado shaatigow doonaha ku jiro qof kasta oo ku kaca qiyaano qaran oo qarankiisa qiyaan oo dadkiisa qiyaan oo dalkiisa qiyaana saaka kuwaanu meeshay mareenay mari doontaa. waxaan dhihi lahaa way naga soo daahday in maanta ay dhacdana runtii aad iyo aadan idinkugu hambalyeynaya ilaahay idankiis qof kasta oo qarankeeda qiyaana iyo qof kasta ee ummadeeda qiyaanana ceebteeda ilaahay banaanka ayuu keeni doonaa meeshaas ayayna ku dambayn doontaa. Cabdiraxmaan Gacan warbaahinta qaranka gobolka warbaahinta qaranka Soomaaliyeed waxay heshay godkii uu ku dhuumaalaysanayay horjoogihii iyo qawaarijtii lagu soo afjaray deegaanka Bariire ee gobolkaasi Shabeellaha Hoose. wariyaheena Sikri Qaasim Gabax ayaa warkan ka soo diray halkaas. xilliga aan soo gaaray godka askariga ka soo baxay dal jiraay godka maxaa ugu tagtay wallahi saxridiisii wax si gaalo cunadii loo keenay ma la gali karaa oo ilaa hore u soo furin karnaa ilaa intuu ku geey burkan arkay kuwan kalena inta ka badan kuwan ilaa iyo wareegas square caadi waa kaamiradu square ilaa halkaas kan hadaa gal xagee ka baxaa kan hadaa gashay ilaa halkaas yaa gala hore u galay anaga hore u galnay waxay dhex maraynaa beeraha cambaha ah ee deegaanka Bariire ee gobolka Shabeellaha Hoose. argagixisadu meeshan balgiriyaasha ah waxay noo sheegeen in halkan ay markaas gobad ka qotaan si markaas gabaad uga dhigtaan. gobadka ayaa ah kuwa dhowr ah oo ilaa iyo inta ay sidaas oo kale gobadku markaas yihiin kuwa jeexan
god waliba ay gabaad ka dhigtaan argagixisada waa laga diiday damacooda oo wiilashan geesyada ah oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa ka saaray sidaas oo kale godad kale oo dhowr ah iyo geedaha cambaha hoostooda markaas argagixisada uga qoran dadkan waxa uu jeexan yahay ilaa iyo halkaas waxayna wiilashu sheegeen in amiirada markaas argagixisada ugu soo sareeyay horjeedayaashooda ah in halkaan ay gabaad ka dhiganayeen godadku waa ay badan yihiin argagixisada ay ka qoteen halkan geedkaas cambaha ayuu ka soo bilaabanayaa ilaa iyo geedkaas kale ayuu jira inta waxaad arkaysaa in ay tahay god isla markaasna la kor saaray geed camba ah oo la soo jaray jawaan jiingad carro iyo waxyaabo kale oo markaasi taas oo ku tusinayso in ay leeyihiin gabaad halkan ayaa ka muuqato oo godka gudihiisa ah waxaadna arkaysaa in godka lama قفله waxaan aad arkaysaan oo geedo camba ah oo dhan argagixisada ayaa markaas jirtay halkan waxa ku yaala godka oo aad arkaysaan godkan waxa la sheegay in mid kamid ah horjeedayaashii howlgalkan horkacay in uu markaas qotay godku waa uu dheeryahay ilaa iyo gadaal ayuu markaas jiraa waxaad arkaysaan in joodari iyo waxyaabo kale ay markaas godka ku jiraan sidaas oo kale godkan waxa uu dheeryahay gadaal waxa uu gaarayaa ilaa iyo halkii aan markaas ka nimid waxa doo saaran sidaad arkaysaan geedahan cambaha ah ee markaas la soo jarjaray jawaanadan ciidda laga soo buuxiyay jiingado iyo bacahan iyo waxyaabo kale oo dhowr ah ayaa markaas godkan dul saaran si loogu dhinto balse geesiyadu waxay yiraahdeen maya oo damaceena kama gamba kartaan goob weliba iyo goor kasta waynu idin dul taagannahay goobaha aad gabaadka ka dhigataanna sidan ayaan markaas u dul imaanaynaa halkan sidoo kale waxa ku yaalo god weyn oo dheer oo markaas tarajay ah argagixisadu waxay doonayeen buudnada deegaanka bariire oo ta ah in ay ka difaacaan balse waa laga diiday godkan haddii aynu gudaha u galno waa god dheer oo ku saamaxayo qofka gabi ahaanba in uu qariyo waxay doonayeen inay ku dagaalamaan oo markaasi ay difaac ka qotaan balse geesiyada ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed maya ay yiraahdeen oo way diideen godkan haddii aynu horay u sii raacno oo aynu halkaas ka galno waxa uu sidaas oo kale ka baxayaa xaafadaha deegaanka bariire waxa uu galayaa godadkii horay markaas aynu idin toosinay farsamo walba ay isku dayeen deegaanka bariire in argagixisadu ay ka diidaan balse geesiyaal foojigan oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa soo afjaray damacoodii ku eedanaa in maalmo gabaad ay ka sii dhigtaan bariire haatanna waxaan doonaynaa in aan godkan galno godkan waxa uu qayb ka yahay godadkii argagixisada ay markaasi ka samaysteen deegaanka bariire ee gobolka Shabeellaha Hoose godkan halkan ayuu ka bilaabanayaa ilaa ay halkaas ayuu gaarayaa waxay ugu tala galeen in gabaad ay ka dhigtaan oo ay markaasi ku dhintaan balse geesiyada ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed had iyo jeeraale waa kuwa diidan argagixisada god iyo geed goob walba ay gabaad ka dhigtaan in markaas ay ku sii dhintaan waa kuwa markaasi ugu galay gudaha ayaan godkan u galeynaa si markaas aynu aragno godkan argagixisada ay markaasi ku dhuumaalaysanayeen waxaan ku soo arkay gudihiisa buugaagtan kuwaas oo qayb ka ah waxyaabihii sida mala awaalka ah ay dadka markaasi uga qaadi jireen sidaas oo kale waxaan qiyaasayaa godkan in uu markaasi deganaa ama gabaad ay u ahayd kooxda amiirkii halkan ugu sarreeyay gudaha godka waxa ku arkaysaa tiro joodaryaal ah oo markaasi ku jiro argagixisada goob waliba iyo god walba ay markaasi gabaad ka dhigtaan geesiyada ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waa kuwa markaasi uga daba tagayo oo uga galay god iyo geed goob walba oo markaasi gabaad ka dhigato geesiyada ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed kaama harayaan oo gumcooda waa ku soo gaarayaan ayay noqonaysaa fariintu madaxii maaliyadda kooxda qawaarijta ah ayaa waxaa lagu dilay gobolka Bakool kadib howlgalo ciidamada qaranku ay ka sameeyeen deegaano hoostaga gobolkaasi wariyaheena Maxamed Xasan Cabdiraxmaan ayaa inoo soo waramay
taliska ciidanka xoogga dalka guutada sagaalaad ee gobolka Bakool ayaa shaaciyay in howlgal qorshaysan oo lagu dilay deegaanka warta ay duure oo 30 kilomitir dhanka waqooyi kaga beegan magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool horjooga ka tirsanaa kooxda khawaarijta al-shabaab horjooga lagu magacaabo Cabdullaahi Abuukar Cali oo kamid ahaa horjoogayaasha sarsare ee khawaarijta xilal kala duwan ka soo qabtay gobolka Bakool waqtigan khawaarijta u qaabilsanaa madaxa maaliyadda kooxda ee gobolka Bakool sidoo kalena caan ku ahaa askaraynta caruurta yaryar ee sida qasabka ah loogu daro maleeshiyada shabaab taliska ciidanka xoogga dalka ayaa cadeeyay in howlgalkan uu ahaa mid qorshaysan oo bartilmaameed gaar ah loogu qaaday isla markaana lagu burburiyay shabakad khawaarij ah oo ka howlgali jirtay deegaanada lagu dilay horjooga Cabdullaahi Abuukar Cali oo dadka deegaanka nafta ugu keenay in caruurta hoog ugu askareeyo xoolahana uu ka dhaco hase yeeshee gacanta geesiyaasha ayuu ku baxay maanta bulshada oo ku faraxsan aadna u hadalhaya ayaa ka soo yeeray erayo ay ka mid yihiin gadaashiis allanama fidneeyo maxamed xasan cabdiraxmaan warbaahinta qaranka magaalada Xudur howlwadana ka tirsan wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Galmudug ayaa la guddoonsiiyay abaalmarino geel ah wariyaha warbaahinta qaranka halkaas uga soo warama Cabdinuur Ciise Qalamad ayaa warkaan inoo soo diray xoolaha waa mid ka mid ah ilaha ugu muhiimsan ee dalkeena waana muhiim in loo helo dawo iyo daryeel caafimaad oo joogto ah iyada oo taa laga duulayo howlwadeenada wasaaradda xanaanada xoolaha dowlad goboleedka Galmudug ayaa gurceel ka fuliyay qalliin dhif iyo naadir ah midka oo lagu sameeyay neef geel ah oo 2 bil koor oo ku dhex dhintay uurjiifkii uu siday qalliinkan oo saacad iyo bar qaatay ayaa ugu dambeyn lagu guuleystay waxaana neefkan geel ah lagu sameeyay qalliinka loo yaqaano C-section mulkiilayaasha neefkan ayaa wasaaradda xanaanada xoolaha dowladda Galmudug kaga mahadceliyay daaweynta iyo badbaadinta neefkan iyaga oo sheegay in xaaladan oo kale ay ku waayaan 100 neef oo geel ah Cabdullaahi Maxamed Siyaad ayaan hashan waxaan ka soo qaaday meel la yiraahdo Itoobiya soo saar dhagax buur la yiraahdo waan soo gaari saaray meeshan hadana degmada Gurcalagteeda aan keenay meeshaas uma qalliin loogu fuliyay qalliinkaas oo u fuliyeen wasaaradda xanaanada xoolaha Dr. Ibrahim iyo Dr. Sahro ayaa meeshaas qalliin ugu fuliyay waana ku mahadsan yihiin aad iyo aad ka xaaladiisu ilaa muddo 2 bilood ah ay xanuunsaneed markii hore si fooleysay ka bacdi fooshii ka tagtay waa xanuunsatay ayadoo aad iyo aad u lif daran soo qaadnay ayaan meeshan keenay haddana waa fiican tahay Ilaahay u gargaaro qalliina meeshaas lagu fuliyay ay mahad iyo amaal celin ha ka siiyo ayadoo aan haatan wax lacag ah oo nala ku xujeeyay iyo wax nala ka qaada aysan jirin hashiina ay ka badbaaday oo hadda ay aad iyo aad u wanaagsan tahay haddii intaa waan uga amaal celinaynaa waan uga mahad celinaynaa wasaaradda xanaanada xoolaha Galmudug Gurceel dadku ha u keensadeen xoolaha aad iyo aad ay ugu fiican yihiin hashii waa daaqaysaa hadda biyaheedii saaka waa cabtay waana qurxoon tahay ilmagiina waa laga soo bixiyay asagoo 2 bilood waqti yahay ayaa laga soo bixiyay oo laga qalay kelida agaasimaha shaybaarka degmada Gurceel ee wasaaradda xanaanada xoolaha dowladda Galmudug ahna dhakhtarka fuliyay qalliinkan ayaa sheegay in wasaaradda xanaanada xoolaha Galmudug ay xilli waliba diyaar u tahay garab istaaga iyo la dara noqoshada xoolo dhaqatada Galmudug aad u jeedaan waa neef geela muddo 2 bil ka hor ah ilmihii ay ku dhex dhinteen waqtigaasna meel fog joogay runtii aan daryeel caafimaad helin laakiin waxa Ilaahay mahadiya in neefkii deegaankii dheer laga keenay xarumihii caafimaadka xoolaha dowlad goboleedka Galmudug la soo gaarsiiyay maantana kiiskaas aan fulinay oo qalliinkaas aan ku sameeyay cunugii orjiifka aad arkaysaan oo 2 bil ka hor ku dhex dhintay aadna runtii aad dareemayso inuu oo hataa neefku minkii ka baxay calooshii caad wuxuu iska dhex yaalay gudihii oo waqti dheer neefku minkii dilacsanay waxa la dareemayay marka neefkaanu in oo appetite-kii dhama soo jaray xaaladiisuna ay ahayd runtii xaalad aad u daran kuna dhawaay neefku runtii inuu arrimahaas u geeriyoodo waxaa farxad noo ah in
dadkii xoolo dhaqatada ahay ay fahmayaan nidaamka xanaanada xoolaha. dadkeenu awal waxay ahaayeen xoolo raacato balse hadda waxay moodaa inay soo noqonayaan xoolo dhaqato. guudna wasaaradda xanaanada xoolaha dowlad goboleedka Galmudug waxay u diyaarsan tahay inay howl walba oo xoolaha ku saabsan ama neefkii dawada u baahan yahay waa la daweynaa. haddii neefku uu dawo baashiisa ka gudubto oo qalin yahana waa la qalaa. wasaaraddu marka guud ahaan waxay u diyaarsan tahay in howlahaas xoolaha nooc walba yihiinba ay qabato maadaama ay tahay wasaaraddii xanaanada xoolaha ayadoona guud ahaan ay mas'uul ka tahay wixii xoolahaas quseeyo ayadoo mas'uul ka tahay. Guraceel oo dhacda bartamaha Soomaaliya waxa ay ka mid tahay magaalooyinka ay ku nool yihiin xoolo dhaqatada ugu badan. magaaladan ku yaala suuqa ugu weyn bartamaha Soomaaliya ee lagu iibiyo xoolaha midda oo ku tusaysa ahmiyadda xoolaha ay u leeyihiin dadka reer Guraceel. waxaana bulshada kale ee Galmudug ay si weyn ugu baraarugayaan xilligan dhaqashada xoolaha gaar ahaan geela. Cabdinuur Ciise Qaramada Warbaahinta Qaranka, Guraceel. xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa lagu wareejiyay qalab caafimaad oo loogu talagalay madaxafka caafimaadka qaranka. wariyaheena Xabiib Axmed Cali ayaa inoo haya warbixinta. wasiir dowlaha wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada Soomaaliya Dr. Maryan Maxamed Xuseen iyo agaasimaha guud ee wasaaradda Dr. Guleed Cabdi Jaliil ayaa maanta qalab xafiiseed kala duwan oo loogu talagalay in lagu qalabeeyo laguna horumariyo shaqooyinka xarunta macadka caafimaadka qaranka kala wareegay hay'adda African CDC. agaasimaha guud ee macadka caafimaadka qaranka Dr. Xuseen Abuukar Muxudiin oo ugu horeyn ka hadlay madasha ayaa sheegay in qalabkan oo isugu jira agab xafiiseed kala duwan loo adeegsan doono in lagu horumariyo shaqooyinka muhiimka ah ee macadka caafimaadka qaranka oo wasaaradda caafimaadka u qaabilsan qorsheynta, kormeerka iyo cilmi baarista caafimaadka dadweynaha si loo hubiyo in bulshada laga ilaaliyo cudurrada iyo halisaha caafimaad ee degdega ah. waxaa idinku soo dhaweynayaa xarunta macadka caafimaadka qaranka oo maanta aan ku leenahay shirkan muhiimka ah oo daaran laba qodob oo muhiim ah in aan kala wareegno alaab kaabaysa ka jawaabista xaaladaha degdega ee caafimaadka nooga timid Africa CDC. alaabtaas oo iibiyey projectiga la yiraahdo Kiosk project hogaamiso Africa CDC. sidoo kale waxaan warbixin ka dhageysan doonaa hogaanka Public Health Emergency Operation Center ee qaranka 6 bilood oo ugu dambeysay xaaladaha caafimaadka ee public health emergency-ga dalka halka uu marayo. sidoo kale waxaan fursadan uga faa'iideysanaynaa maanta maadaama xanuun dilaac uu jiro oo dib u dilaacay xanuunka ama cudurka diphtheria dalka in activation la geliyo xarunta Public Health Emergency Operation Center-ka si ka jawaabista xanuunkaas ay u noqoto mid waafaqsan framework-ga public health-ga dalka loona howlgeliyo dhammaan xarumaha public health emergency-ga ee heer state iyo heer federaal iyo shaybaarka dhexe ee qaranka intaba. munaasabadda oo ay goobjoog ahaayeen wakiilo ka socday hay'adda African CDC iyo qaar ka mid ah shaqaalaha macadka caafimaadka qaranka ayaa gabagabadii waxaa soo xirtay wasiir dowlaha wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada Soomaaliya Dr. Maryan Maxamed Xuseen. waxayna shaqaalaha macadka caafimaadka qaranka ku boorisay inay si hufan uga faa'iideystaan qalabkan cusub kuna horumariyaan adeegyada muhiimka ah oo ay bulshada u hayaan. aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinaa CDC sida muxuu ahaa joogtada ah ay nool garab taagan tahay hadday noqoto wax maxay tababar hadday noqoto maxay qalab maanta aan u joogno qalabka inay nagu soo dhaweeyaan ee qalabkana siiyaan waxaan leenahay aad u mahadsantihiin waxaan sii rajeynaynaa intaan in ka badan inaa keeni doontiin. waxaana ka rajeynayaa shaqaalaha in qalabkii loo keeno sida ay tahay inay ugu shaqeeyaan in warbixinada loo baahan yahay cudur dilaaca maadaama dhibaato badan hadda oo hore u jirin ay soo korortay idinkoo dhan waxaa wadatiin emergency waxaa loo baahan yahay surveillance-ga inuu xoog lahaado waxaa la war la helaa talo la helaa marka haddii la early respond haddii la sameeyo waxaa imaanaysa warbixin oo aad muxuu accurate u ah oo sax u ah in la helo. marka shaqaalahan waxaan rabaa arrintaas inay xooga saaraan maxaa yeelay maalmaha ugu dambeeyey maxay ahayd waxaa aad ugu soo badatay muxuu ahaa wadanka qandhooyin kala nooc ah gowracato oo ilmaha maxay ahayd aad hadda ugu soo badatay wadankeena taasoo dhibaato xoog leh tahay. Soomaaliya waqtiyada oo hore gowracatada waa laga talaali jiray ilmaha dhibkaasna waxaa keenayo
tallaal la-aanta ilmaha aysan tallaal helin. marka saas rabtigeeda waxaan u baahannahay in kor loo qaado wacyigelinta, in muxuu ahaa surveillance-ka la adkeeyo, aad iyo aadna qalabkan maanta la keeno loogu faa'iidaysto. ugu dambeyn waxaa madasha lagu soo bandhigay warbixin kooban oo ku saabsan xoogihii ugu dambeeyey ee caafimaadka guud ee dalka, gaar ahaan xaaladaha sii kordhaya ee cudurka safmarka ah ee gowracatada oo kiisas badan oo ka mid ah laga diiwaan geliyey qaybo badan oo ka mid ah dalka. xabiib axmed cali, warbaahinta qaranka, muqdisho. wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa uu xariga ka jaray safaaradda cusub ee Soomaaliya ay ku yeelanayso dalka Algeria. wariyaheena Cali Cabdulqaadir Cali ayaa faahfaahinta inoo sheegay. wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Mudane Cabdisalaam Cabdi Cali ayaa si rasmi ah xariga uga jaray xarunta safaaradda cusub ee Soomaaliya ay ku leedahay magaalada Algiers ee caasimadda waddanka Algeria. munaasabad kooban oo ka dhacday dhismaha cusub ee xarunta safaaradda Soomaaliya waddankaasi Algeria waxaa ka qayb galay wasiir dowlaha arrimaha dibadda ee waddanka Algeria ahna u qaabilsanaha arrimaha Afrika ee waddankaasi Marwo Salma Bokta Manzouri iyo xubno kale oo diblomaasiyiin ah, isla maraantaasi uu hogaaminayay danjiraha Soomaaliya u fadhiya waddanka Algeria Mudane Yuusuf Axmed Xasan Yuusuf Jeego. furitaanka safaaradda ayaa qayb ka ah socdaalka rasmiga wasiirka arrimaha dibadda ee wafdi ballaaran uu hogaaminayo maalimahan ku jooga magaalada Algiers ee xarunta waddanka Algeria, taasi oo muujinaysa dadaalka labada dal ee ku aadan xoojinta xiriirka laba geesoodka ee ku dhisan dhinaca diblomaasiyadda iyo wax wada qabsiga. wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalka Soomaaliya markii uu tagay halkaasi waxa ugu horreyn uu kula kulmay magaalada Algiers ee xarunta waddanka Algeria dhigiisa waddankaasi, iyagoo ka wada hadlay xoojinta cilaaqaadka dhinaca diblomaasiyadda ay wadaagaan Soomaaliya iyo dalka Algeria oo ah mid taariikhda ku dhisan. labada wasiir ayaa isla gartay xoojinta xiriirka labada dowladood, isla mar ahaantaas in la dhiso guddi heer wasiir oo ka shaqeeya iskaashiga labada dal oo ay ku jiraan dhinacyada amniga, dhaqaalaha, waxbarashada iyo qodobo kale oo muhiim ah. wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Daawud Aweys Jaamac ayaa maanta xafiiska waxa uu ku qaabilay safiirka midowga Yurub ee Soomaaliya. wariyaheena Maxamed Suleymaan Nuur ayaa ka waramay. wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Daawud Aweys Jaamac ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay safiirka midowga Yurub ee Soomaaliya Karin Johnson. wasiirka iyo safiirka midowga Yurub ayaa ka wada hadlay iskaashiga iyo horumarinta dhinacyada dhaqanka iyo wacyigelinta bulshada. wasiir Daawud Aweys Jaamac ayaa ku bogaadiyay midowga Yurub taageerada iyo wada shaqaynta wanaagsan ee ay leeyihiin dowladda federaalka Soomaaliya, gaar ahaan kaalinta midowga Yurub ee ku aadan horumarinta dhaqanka iyo dhiirigelinta nabadda. danjire Karin ayaa dhankeeda xustay in ay doonayaan inay labanlaabaan howlaha ay ka wadaan Soomaaliya, iyadoo intaa ku dartay in dalku uu sameynayo horumar dhinacyo badan leh oo abuuraya rajo cusub. kulanka waxaa sidoo kale goobjoog ka ahaa mas'uuliyiin ka kala socday wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska iyo midowga Yurub. Maxamed Suleymaan, warbaahinta qaranka. ka tirsan maamulka gobolka Banaadir ayaa wadooyin interlog ah waxa ay ka dhagax dhigeen degmada Waaberi ee isla gobolka Banaadir. wariyaheena Maxamed Daahir Degana ayaa ka waramay. gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka Banaadir, xogayaha guud ee maamulka gobolka, agaasimayaal iyo mas'uuliyiin kale ayaa ka soo qayb galay maanta dhagax dhigga 3 wado oo laga dhagax dhigay maanta degmada Waaberi ee magaalada Muqdisho. waxaana ay ku bogaadiyeen gudoomiyaha degmada dadaalka uu sameeyey iyo dib u dhiska uu hadda ku wado wadooyinka muhiimka ah ee degmada Waaberi ee magaalada Muqdisho. waxaa halkan ka hadlay qaar ka mid ah odayaasha iyo waxgaradka degmada Waaberi iyo gudoomiyaha degmada Mudane Xuseen Xasan Maxamuud oo dadaal badan geliyey dhismaha wadooyinkan oo lagu dhisayo hab isku tashi ah. waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay gudoomiyaha degmada oo qabanqaabiyey in wadadan oo muddo dheer dhibaato iyo rafaad qabtay, wadada wasaq, biyo, wax kasta ay qabtay, maanta loo labisayo. waxaa lagu labisayaa interlog mar hadduu yimaado waxaa imaanayo qurux, nadaafad iyo sharafaa imaanayso. wadadan waxaa la rabaa inay shacabka reer Waaberi la socdaan in lagu dhisaayo, waa la dhagax dhigaa, isku tashiyaa lagu dhisaa. annaga isku tashanayno, waxaan dhisanaynaa wadooyinka degmadan. reer Waaberi way tashteen, reer Waaberi waxay ku tashteen interlog dhistaan, inay wadooyinka dhiman ay dhammaystiraan oo qabyadu ay iyo kuwa hadda bilaaba kulliba. wadadan aan dul taaganahay wadada Jayga la yiraahdaa
horta hal waddo ma aan waxaan dhasaa ka dhagax dhigayna waa 3 waddo oo halkaan iska gooyaan waddadan halkaan ka soo dhacda oo halkaan u goysa iyo waddadan kale to dheer iyo waddo kale oo ka dhacda halkaan baan dhisaynaa oo 3 waddo weeye oo dheer oo bulshadu ay wax badan ka faa'iidi doonto insha Allah ta'ala aan rajaynayn ay faa'iido badan ka soo bixi doonto reer Waaberi waddadan aan dhagax dhigayno waa ogtii muhiimadda ay leedahay markii laga soo tago waddooyinka waaweyn oo laamiga waddada kaliya oo maanta reer Waaberi ay maraan oo xaafadaha dhaxmarta waddadan weeye waxaan rajaynaynaa inay noqoto waddadan inaad ka qayb qaadataan sida mugl uga qayb qaadataan insha Allah ta'ala waxaa dhagax dhigga sameeyey gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee gobolka Banaadir iyo xogayaha guud ee gobolka iyo agaasimayaasha iyadoo sidoo kale mas'uuliyiintaasi oo la hadlay warbaahinta ay sheegeen inay soo dhaweynayaan shacabkuna ay ku tashadaan oo ay dhistaan waddooyinka muhiimka ah iyo goobaha danta guud waxayna ku bogaadiyeen gudoomiyaha degmada iyo maamulkiisaba iyo shacabkiisa inay yihiin dad isku duuban oo ka shaqeynaya amniga iyo horumarka adeegyada bulshada ee ka jira degmadan waddooyin ka mid ah ujeedka Halbowlaha ee degmada Waaberi waxaan u mahadcelinayaa gudoomiyaha degmada iyo dhammaan bulshada degmada oo isku tashi iyo ku aansaday inay ku horumariyaan ujeedka degmada Waaberi ka maamul ahaan insha Allah waxaan rajaynayaa inaan ka qayb qaadano hadda waxaan kula dardaarmaa shacabka degmada sidii quruxda badan iskugu soo baxeen ee uu go'aansan inay waddooyinka dhisaan inay hadhowna u ilaaliyaan dhismaha iyo nadaafadda waddooyinka ee dareemaan lahaansho maanta inay Waaberi interlock ay isku bedesho waddo kasta oo ka mid ah aad iyo aad aan ugu faraxsannahay oo aan u soo dhawaynaynaa inay dadkooda isku tashteen ay maanta ayaga iskaa wax u qabso ayagoo maamulkii gobolka Banaadir iyo degmadii waxaa taas caddaynaysa gudoomiyaha gobolka Banaadir mudane Mungab inuu bilic soo celinta iyo wadda dhisidda iyo habeynta gobolka Banaadir ay ka go'an tahay waxaad ka arkaysaan in maanta xaafadihii loo soo daadegay oo waddooyinkii laamiyadii laga yimid oo waddooyinkii ay Waaberi oo laga cabsan jiray inuu boosaneer kula dumo inay maanta interlock noqonayso aad iyo aadaan degmada Waaberi ee magaalada Muqdisho waxay ka mid tahay degmooyinka isku tashiga ku dhisanaya xarumaha muhiimka ee maamulka iyo adeegyada bulshada iyadoo shacabku ay sheegeen inay ka qayb qaadan doonaan tallaabo waliba oo loo qaado dhinaca horumarka maxamed daahir degane warbaahinta qaranka Soomaaliyeed Muqdisho Riyaal Afrikaan oo doonayay in ay gaari qaboojiye xambaaro ku galaan dalka UK ayaa dib loogu celiyay Faransiiska sida laga soo xigtay booliiska dalkaasi wararka ka imaanaya Britain waxa ay sheegayaan in tiro dad ah oo Eritrean laga helay iyagoo ku dhuumaalaysanaya gaari nooca qaboojiyaasha qaada ah dadka Eritreanka ah oo tiradooda lagu qiyaasay 15 qof ayaa waxa ku jiray ilmo yar waxayna ku dhuumanayeen gaariga qaboojiyaha ah iyagoo isku dayay inay gudaha u galaan dalka UK sida laga soo xigtay wakaaladda wararka Faransiiska u baahisay ee la yiraahdo AFP qodobkaas dibadda ayaa u dambeeyay daawadayaal warkii aad kala socoteen telefishinka qaranka Soomaaliyeed oo ku mahadsantiin inaad xilli walba wararkeena daawataan warkiisa kale intaan mar kale kulmayno nabadgelyo